ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA waxay burburiyeen shabakado waaweyn oo ka tirsanaa al-shabaab kuwaas oo ka geysan jiray dilal muwaadiniin iyo qaraxyo gudaha Soomaaliya waxaana shabakadaha la burburiyay ay isugu jiraan kuwa la dilay iyo kuwa la qabtay waxaa sidoo kale meesha laga saaray shabakadu qaabilsaneyd sahada iyo saadka kooxda ugus taas oo isu ekaysiin jirtay ganacsato kadibna agab sahay ah u kala daabuli jirtay gobolada dalka si ay u gaarsiiyaan maleeshiyaadka jiqgaleenka ee kooxda ugus sanadihii ugu dambeeyay waxay kooxda ugus ee kis al-shabaab isku dayayeen inay ka gacan toogaaleystaan gudaha suuqa ganacsiga Soomaaliya ugu weyn ee Bakaaraha laakiin taas uma noqon meel mar waxaana qorshe kasta ay soo diyaarsadaan si ay suuqa dilal uga geystaan dhabarka ka jabinayay ciidanka NISA ee muuqda iyo kuwa aan muuqan ee ku dhex milan suuqa waxayna isku daygii ugu dambeeyay gudaha suuqa ku dileen maleeshiyaadkaasi haweeney ganacsatada xilli ay ka tukaameysanaysay suuqaas laakiin ciidanka aan muuqan ee NISA oo aan ka fogeyn goobta ayaa markiiba qabsaday waajibkoodii shayada korona ka ilaalsanayay kooxdaasi bastooladleyda inta ay ka soo gaarayeen ciidanka ee muuqda NISA oo aan ka fogeyn goobta waxaana markiiba halkaasi lagu dilay horjoogii horkacaya maleeshiyaadka kadib markii uu diiday inuu isdhiibo iyadoona isku mar halkaasi laga qaaday gabadhii ay dileen iyo meydka horjoogii watay kooxdii dishay gabadhaasi oo la dareensiiyey xanuunka geerida si lamida sidii uu dareensiiyey gabadhaasi muwaadinada saddexdii December ee sanadkan 2015 waxay shabakad qaabilsan qaraxyada soo maleegeen dhagar ay ku qaarajeen Allah u naxariistay wariye Hindiye Xaaji Maxamed oo ka mid ahayd wariyaasha SNTV iyo Radio Muqdisho waxayna marxuumad Hindiye oo ahayd hooyo haysata 5 caruur oo laba ka mid ah yihiin agoontii ka dhintay Allah u naxariistay wariye Liibaan Cali Nuur oo isna qarax ay ku dileen sanadkii 2012 kooxda ugus xillo ku sugnaa maqaaxida guriga hooyooyinka ay la daara dhacaysay nolosha shantaasi caruurta oo ay dhabarka u ridatay waajibaadkii hooyada kii aababa Cabdirasaaq Maxamed Barrow oo magaciisa afgarashada uu yahay Macalin Maxamed waa 30 jir ah aabba dhalay laba gabdhood oo ku furay hooyadood kuna dayacay nolosha waxa uu ku nool yahay xero qaxooti oo Muqdisho ku taal ma haysto nolol fiican tii uu dheer tahay inuu ka shaqeysto daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed wuxuu Cabdirasaaq ka tirsan yahay kooxda ugu sekita al-shabaab oo qaabilsan yahay xuuraanka iyo ku dhajinta qaraxyada baabuurta Barrow waa dhagar qabiil dhagre Allah u naxariistay Hindiye Xaaji Maxamed uguna dhajiyay gaarigeeda miino si uu hooyalaan u dhigo caruurtii ay hore u agoonteeyeen kooxda uu ka tirsan yahay Barrow oo hadda ku jira gacanta NISA waxaan kula kulmay xabsi ay hay'addu maamusho iskuma arko inuu yahay nin geystay jariimo weyn waxa uu iga sheekeeyay sida ay ku bilaabatay hawsha ay ku dhagreen Hindiye iyo halkii ay ka bilaabatay magacaygu horta waa Cabdirasaaq Maxamed Barrow bishaan hadda aan ku jirno awalkeedii iyo mid hore inta u dhaxayso bisha hore hadda naga dhamaatay iyo had bishan hadda ee socoto inta u dhaxayso dhaxdooda ayaa macnaha waxaan maalmaha kamid ah aan ku arkay xeebta Liido nin lagu magacaabo Xasan Nuur magaciisu xarkagu yahay Sheekh Aweys inta Liidaan isku aragnay waa wareysan horena waa soo qoon jirnay waxaan soo dhaxmar waa shaqeyn tiro badan oo dhan oo bulsho ah ay u badneed jimcihi ayaan isku imaanay Liido waan dabaalanay anigu horta waa dabaashtay laakiin isagu waxaan ka arki doonaa gadaal markaan arko ay gacantu ii haadiyay waan soo baxay banaanka imaanay waxaan galnay shaahan dalbanay meelaas ka fadhiisanay shaahi waxa u baxnay gees oo noo bixiyay nin waxa waa aad u jecel inuu u baxo gees warniyo wuxuu yiri Hindiye Xaaji Maxamed ma taqaano Hindiye bas yiri Hindiye ma taqaan marka aniguna Hindiye aqoon hadda oo waji ahaan uma lahayn leef ahaan uma aqaano marka waxa ay Hindiye aniga ma garanayo balse Hindiye maxay tahay waa islaan oo xitaa qabiilkiisa ay sheegay maxaa ka taqaanay markaa waxaan ku ogaayay inay la shaqeyso wasaaraddan isgaarsiinta la yiraahdo ما waxaan ilaahay wasaaradda warfaafinta
raadiyo muqdisho iyo waxaas ama telefishinka waxaas oo kale xasankii wuu soo istaagay shayaan dhamaysanay xogtaas ayaan kala qaadanay ani isaga rag badanna waa ii sheegay oo dhahay oo leeyahay waa ku soo salaamayeen oo mar hore ugu dambeysay oo ii sheegay shaahi waa ka kacnay meel kale haddana tagnay oo waxaan baddaan iska laabanay waa soo baxnay waxaan ka qadinay adiga maqaayadaan galnay qadada baabuur raaca iyo waxaa bixinaya isaga sheekh aweysaa bixinaya magaciisu rasmigu yahay xasan nuur ayaa bixinaya almuhim aniga waxaan galay shaqadii aan galay macluumaadkeedii qaar waan hayay qaarna waa iga maqnaayeen qaarkaan hayay wuxuu ahaa hindi in la yidhaha xaaji maxamed inay tahay weli tahay ee ku hadasha afraxweyn dadka jooga magaalada way garanayaan magaalada waa la yaqaanaa waa qofta keliya ku hadasha afmamayga xasan nuur oo magaciisa dhagarta la yiraahdo Aweys waa madaxa shabakada qaraxyada ku dhajisa baabuurta waa maskaxdii ka dambeysay in la dilo hindiya xaaji maxamed waa horjoogii soo diyaariyay qalabkii loo isticmaalay dilkii wariye hindiya waa ninkii uu ka sheekeynay dhagar qabe Cabdirasaaq inuu u idmay hawsha indhaynta hindiya iyo diyaarinta habkii loo dili lahaa waxaana xasan nuur oo hadda isna ku jira gacanta nisa aan kula kulmay xabsi ay hay'addu maamusho waxaa ka muuqday xasan walwal cabsi iyo argagax waxa uu walwal ka qabaa natiijada dambigii uu geystay waxa uu noqon karo waxaana xasan nuur qayb ahaan qiranayaa lugtii uu ku lahaa dilkii hindiya isagoo ku doodaya inuu ahaa adeega loo soo dhiibay qaraxa oo ku simay gacanta Cabdirasaaq oo ahaa qofkii loogu talagalay inuu ku dhajiyo qaraxa baabuurka aniga maxaa la yiraahdaa magacayga waxaa la yiraahdaa xasan nuur cali aniga hadda runtii iska sheego anigoo been ka dhaqaaqayo sidii marka horeba u xaqiijiyay saraakiisha nabadgudda haddana sidii inaan u xaqiijiyo rabaa anigu waxay ahaayeen wax baakadaysan oo shaabadaysan waliba baakad shaabadaysan oo shaabad ku xiran tahay bac madow ku sii xiran tahay ninkaas ayaa horta alaabtan ii soo dhiibay anigu wuxuu yiri ninka la yiraahdo Cabdirasaaq Maxamed Barrow waa isna qaananin reer Rafoola isku ahaa jirnay asagana Rafoola ayuu dugsi ku hayay anigana Rafoola ayaa deganaa marka wuxuu yiri waa isna ninkaas adoga ah oo amar kale waa la soo siiyo kor laga soo siiyo rijaal niman kale rag kale ayaa amar soo siiyeen oo rijaasha ayaa amar soo siiyeen oo marka wuxuu dhahay rijaasha ayaa amar soo siiyeen amar kale oo qaba oo hatta aniga ahaynin laakiin aniga waxaan ku adeegsahay adiga inaad alaabtaas u geyso alaabtaasna asaga iska leh waa alaab asaga oo leeyahay oo markaan arabti hoos u weydiiyay oo ku celceliyay oo in badan iga warwareejiyay madaxa iga warwareejiyay wuxuu dhahay waa sandal kobo waay sidaas uu dhahay alaabtii sidaas aan ku soo qaaday waan imaaday degmada Cabdilcaziz ayaan imaaday 4 saac ayuu ugu soo wareejiyay bar meelahaas marka wuxuu dhahay u geey marka ninkaas u geey kulli rag kale ayaa anigana soo amreen asagana soo amray ma fahantay marka wuxuu u geey alaabtaas u geey alaabtii waan soo qaaday wuxuu yiri alaabtan hadii lagu qabto hatta aniga afaarihiga ma gali kartid xasan nuur iyo Cabdirasaaq Barrow waxay ku kala warqaadan jireen garoomada lagu ciyaaray Konis iyo Luujino halkaas oo ay iska dhigi jireen taageerayaasha ciyaaraha socda waxayna inta ciyaartu socoto awaamiir ku kala qaadan jireen gudaha garoonka taasoo adag in qof ka shakiyo rag odayaal ah oo mararka qaarkood iska dhigi jiray taageerayaal jidbaysan dhinaca kalena wata kulamadooda caadiga qorshahooda waqtigaas ka mid ma ahayn inay garoomadaasi ka geystaan dhibaato laakiin waxay ahayd goob ay ku kala warqaataan waxay sidoo kale ku kulmi jireen xeebta Liido oo ay ku wada dabaalan jireen iyagoo badda gudaheeda ku jira ayayna isku dhaafsan jireen warbixinada ay soo ururiyaan kadibna waxay ka wada shaaxi jireen maqaayadaha ku yaala Liido halkaas oo ka mid ahayd goobaha ay u isticmaali jireen inay isku dhaafsadaan xogaha dhagridda xasan aniga ilaa balad waxaan u ahayd maalin walba oo jimci kadib inaan kulanno oo ku kulanno wiish ama Konis maalmaha jimcaha khamiista mooyaane inta kale inaan kulanno wiish ama Konis badanaa waxaan ku kul jirnay kilometer 0 meel oo goomista u yaal meesha marka la soo dhaafo 5 bas la soo dhaafo xoogga la soo moodo
oo laga soo baxo habar khadiijo waxa la soo dhaafo irdiida hore meesha qarax ka dhici jiray xoogaa la soo socda adiga derbiga imaaraadka inta la gaarin ka soo koow meel ku yaal goomista ninka yaqaan halkaas ayaa badanaa ku kulmi jirnay sheekadana halkaas ayaan ku dhimaysan jirnay aniga iyo Sheekh Uways isaga wuxuu ii yaqaanay macallin Maxamed anigana waxaan u ka saayay Sheekh Uways meeshaan ku kulannay waa sheekaysanay axwaashaan kala qaadnay intaas wuxuu ku hadlayaa telefoon oo Samsung ah wuxuu wataa laba telefoon mid waa Tecno midna waa Samsung Samsung waa weynka meelaha wadiin maaha waa mid xooga ka duwan waa modelkii hore oo adiga screen lambar saraakiisha badanaa wax ugu qornaa kaas ugu qornaa ilaa wax ku yoomay ama ku hadlay badanaa wuxuu lambarkaas ayuu ahaa bas wuxuu yiri hawshaas ayaan loo hool baa yiri aan loo diray yiri soo dhaw si warkiisu wuxuu badan yahay wuxuu ku leeyahay soo dhawow hool baan loo diray culus hawshaas waxay u baahan tahay in laga shaqeeyo hawshaas waa inaan ka shaqeysaa laakiin hawshan ka shaqeynayo iyo ababa iyo abday waxa dhacday marka waxa yiri intee wax ka bilaabna shaqo waxay u baahan tahay qarash u baahan tahay facility u baahan tahay nin door cidla ah wax ku qabanaa ma jiraan waxaanu hool ay dirtay waxa maxaa qabanaya maxaa ku qabtaa aniga marka wuxuu yiri saaxiibka waxa ku dadaashaa yiri hal shay ina xogtan soo dhameystirto halkan waxay igu soo bixi lacag adiga buuma u taa badana oo weyn oo xala weyn u watay waxay igu soo bixi 225 kun shilin Soomaali 200 farta iga saaray 25 kun oo meelahan oo kasoo bixiyay jawaab ku watay saasoo isu tiri 25 tan wuxuu yiri maanta way bawrac ku laabo xaafada ku aad 200 wixii birida dambo fasilad ka dhigo hawshu waxa la rabaa inay soo af ma jirto af amusna waa dahab wax telefoon la yiraahdo ma jiraan kasokow liida iyo garoomada ciyaaraha waxay xasan iyo Uways isugu imaan jireen goomista ku yaala degmada Cabdicasiis halkaas oo yana kamid ahayd goobaha isku arki jireen xilliyada subaxiya waxa kaloo kamid ah goobaha ay ku shaaxayn jireen muddada ay ka shaqayn jireen dhagarta ay ku dileen hooyo Hindiya Xaaji Maxamed goob maqaaxiya oo inta badan ciidanku ku shaaheeyaan oo loo yaqaan Faybasto halkaas oo ay ku dhaxmili jireen ciidanka si aan marnaba loo dareemin inay faq gooniya leeyihiin kadibna marka ay firaaqo helaan ay arrimahooda gaarka ka wada hadli jireen waxaana adag in la tuhmo goobaha ay ka dhigteen fariisimada qof si joogto u imaanayo aysan ka muuqan cabsiyo walwal la xiriira in laga shakiyo xasan oo ah maskaxdii soo abaabulay weerarkii qaraxa ee lagu dilay Hindiyo waxa uu soo diyaariyay minadii loogu xiri lahaa gaariga Allah u naxariistay Hindiya Xaaji Maxamed 2 December oo ku beegneed Arbacadii ahayna maalin ka hor markii la qarxiyay Hindiyo waxaana uu qaraxa ka soo qaaday goob Quraan saar oo ku lahaa Muqdisho xilli laga soo baxay salaadii duhur isagoo ilaa iyo salaadii casar ku hayay qaraxaasi masjid ku yaala meel aan ka fogeyn saldhigga degmada Cabdicasiis halkaas oo la seexday qaraxa waa soo baxay masjidkii baan imaaday masjidkii waan jiiftay duhurkii la aadaama ee duhur salaadii wax ka dukaday salaadii markaa wax ka dukaday wax yar baa jiiftay waan waxa gashay alaabtii amaanada ahayd ku rumin yaani tuuku qaadan masaajidda xoogaa dad kubaha sandalkii wax ka qaata jiro waa iska barkaday kubahayga sandalkiiga hoos mariyay rooga kor saaray rooga ayada ka kor mariyay amaamadiida dul saaray waa ku dul jiiftay 8 saac waqti la gaaray xoogaa jiifkii waa ka nastay waa jiif waa ka soo kacay baahi baa ay qabatay maqaayadii imaaday oo muday almiina maqaayadii imaaday ninkan ayaa joogay Cabdirasaaq maqaayadii oo sina wax ka cunay anina wax ka cunay maqaayadii wax ka cunay isla markiiba maqaayada banaankeeda soo fariistay meesh oo shaah lagu gado islaan oo geetalaal hoostiisa alaabtii ayaa sidaas u wareejiyay alaabtii sidaas oo iga qaatay oo iga gudoomay Cabdirasaaq badanaa waxa ku arki jiray galabtii hadii ikisluujina hadii ciyaar ka jirto waa ku arki jiray hadii meeshan kala ciyaar ka jirto koonis ciyaar ka jirtana waa ku arki jiray nin ambarito dadka lahaynaya tahay dumarkiyo caruurtiyo duqowiyo aqooyahan anu dirnaxayno tabargoynaya dab nin
ambaarito dadka laynaya tahay dumarkiyo caruurtiyo duqawiyo aqooyahan anu dirnaxayno dabargoynaya cabdirasaaq oo ahaa shakhsigii gacantiisa kula dhajiyay miinada gaariga marxuumad hindiyo ayaa u yimid xasan waxaana miinadii lagula wareejiyey kilomitir 0 halkaas oo kadib ay ku kala tageen xasan iyo cabdirasaaq kuna ballameen inay isugu yimaadaan barxadda guriga hindiyo oo ah meel ay qoysas badan wada deganaayeen oo aan gaar u ahayn marxuumadda waxaana xasan iyo cabdirasaaq oo mudba jiha ka soo galay barxadda guriga hindiyo xilli casar liiqi ah kadibna xasan oo isku soo ekaysiiyey wadaad xerow ah watayna tusbax dheer ayaa istaagay gaariga agtiisa si uu ilaalo uga qabto inaan la arkin hawsha uu qabanayo cabdirasaaq oo markaa wixii ka dambeeyey hoos galay gaariga marxuumad hindiyo kuna dhejiyey qaraxii loogu talagalay waa kan cabdirasaaq oo ka sheekeynaya sida ay markaasi wax u dhaceen baasha soo gacanta ku hayo oo baasha oo ku jirto kortoon ku jiro aan arkay markaas waxaan joognay goomista wax adiga amr jisi oo kala aday wax daqiiqadeed wax asku soo wareeg aniguna masaajidkan iska aad waa soo laabtay waxa isoo qosla la cabdana dhidka soo arkay wuxuu wax waa hagaagay insha Allah markaas waa tukanay cabaran joognay waa masaajidka oo gagalay aday waxa la gaar 9 saac la gaar wiicata wuxuu wada wuxuu caamad wuxuu taa ay qaataan odayash dhaqameedka ay qaataan weyn aad u waasac waxa lagu dactaa oo si loo arko waa la soo dhaqaaqay marka niyo wuxuu yiri hooshii aan rabnay waa hawshan ina hawshan aad fulisa kadib marka 9 saac iyo bar iyo 10 saac oo wax ay la jiraan waa soo baxnay aniga isaga inta kale xana yiri waa soo baxnay kilomitir 0 aan soo dhaafnay wuxuu ka hadlaa marka telefoon warmiyala wax miyala ha faraso waqti ku hay faraso waxa fresh waa nadiif waxa hortaaga ma nadiif alli amal macna waxaan ka dareemaa halas aan ka qiyaasa macna socdaalkiisa sida oo kadina iska marka aan ugu wareejiyo wuxuu nakan in soo bax inta ka bax isagana wuxuu ka soo galay dhanka wuxuu ka soo galay saqaawdiin kor oo ka soo galay meel oo kaabu wardiya jiro oo gududan jidka soo dhaxbaxay wuxuu soo galay xaafad aniga wax dhex tagan xaafadda marka isla markii baasho iga dafay wuu hagaajiyay wuxuu ka fafiiqay wuu wuxuu xaq u jiray marka eeri marka waxa joogeen ilmi iyo waa arkay adiga islaami iyo waxaas waa arkay dad adiga waxaan ilaa bulsho camal adiga galabna waa ahayd oo qorax u dhac camal oo soo dhow yahay qariib adiga waa ahayd wax adiga mushkil iyo problem mukul baashi ahay mogta waa iga dafay kartoonka soo bixiyay wuu fiiqay wuxuu yiri qaabkan u xiriyay aan qaabkan ugu xiriyay gaariga waa kana yiri war gaar ko labo wuxuu tiri qolku tiri ko labo waa kana gaariga kulid laakiin ma qeylinayn waxay dareen muujineen wuxuu isku dhigaa nin soo suufa subax wad nin oo alwurdi meesha aan bulka socon amal xafad oo kale isku dhigay gaariga marxuumad hindiyo waxa uu habeennimadii ay soo galaysay khamiistii ku hoyday gurigeeda isagoo ku xiran yahay qaraxu waxayna hooyo hindiyo aan ka warhayn dhagarta loo maleegayo ay ku mashquulsanayd maareynta nolosha carruurteeda waxayna sidii caado u ahayd khamiis walba subaxnimadii khamiistii soo aaday jaamacaddii ay dhiganaysay iyadoo aan ka warhayn qarax ay xambaarsan tahay waxayna kooxda qaraxa ugu xirtay gaarigeeda la socdeen dhaqdhaqaaqeeda iyagoo diidanaa inay qarxiyaan marka ay guriga ka baxdo si aan loo ogaan halka saxda ah qaraxa lagula xiray gaariga waxaana loo xilsaaray cabdirasaaq inuu tago jaamacaddii ay dhiganaysay hindiyo si uu u xaqiijiyo inay ku jirta jaamacadda kadibna waxa uu fariistay isgoys istaraatiiji oo u dhow jaamacadda ay dhiganaysay iskuulka hawga xamar iyo isbitaalka xanaano kadibna hindiyo waxay soo dhamaysatay jaamacaddii waxayna soo wadatay gaarigeedii iyadoo soo agmartay cabdirasaaq una leexatay waddo marta dhabarka dambe isbitaalka xanaano halkaas oo ah bartii lagu qarxiyay hindiyo waa kanoo cabdirasaaq oo mar kale ka sheekaynaya inuusan ka fogeyn goobta qaraxa laakiin iska dhigaya isagu markan dambe inuusan maamulayn qaraxa uu ahaa keliya ku dhajiye hawsha kadib waxaa aad iyo aad ula socday ninka la yiraahdo xasan ama sheekh Weys ala wareeg aniga waxaan ay dameer oo la ratay oo la waxaan geey bis laakiin wixii barnaamij ninka keenay ninka xiray
horta ninkii xiray meeshii saas u xiray waa aniga si ka fudud waa artay muuqaal ahaan laakiin aniga waxa weeye waxaan ka geystay kaliya barnaamijkaas xogtaas oo aan keenay oo hindi inay jirto laakiin wixii dhamaystirtay haddana miinadana waxa weeye ama badda qarxiisay isaa ku xirtay أنا ما أقرأ متفجرات الشباب إني برا متفجرات لكن معقول إني برا على استطلاع إسكمركي وحن كي من الجامعات ده ساكي من الجامعات كي من الجامعات كمدة وأكره سنة بوك مركب بوجي حوي وحي ونقض علس كده أنا ماشي قرح دعاية أسكسو أكبري وبالله توفيق marxuumad hindiye xaaji maxamed oo aan ka warhayn dhagarta ay u malaageen shabakadan ka tirsan ugus waxa uu gaarigii ay wadatay oo uu ku rarnaa qarax kula qarxay dhabarka dambe ee isbitaalka xanaano halkaas oo marxuumadda ka soo gaaray dhaawac xoog leh kadibna waxaa loola cararay hindiyo isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho waxayna dhaqaatiirta isbitaalka madiina ku dadaaleen hindiyo inay badbaadiyaan ha yeeshee ugu dambayntii qadarta alle ayaa ku timid hindiyo waxayna ku geeriyootay waqti casar liiqi ah gudaha isbitaalka madiino wixii ka dambeeyay markaas waxa ay nisa bilowday ururinta macluumaadka ku aadan sidii loo dhagray hindiyo waxayna nisa u xilsaartay cutub gaar ah inay daba galaan macluumaadka ku aadan sidii loo dhagray hindiyo cutubkaasi loo xilsaaray shabakadii disha hindiyo waxay ugu horeynba heleen furihii macluumadii ay dabageli lahaayeen waxayna ogaadeen shakhsiga ugu xiray miinada allah u naxariistay marxuumad hindiya gaarigeeda shakhsigaasi oo ahaa cabdirasaaq barrow waxayna cutubkaasi nisa ka tirsan ay si gaara ula socdeen ugu yaraan 2 maalmood dhaqdhaqaaqa cabdirasaaq ugu dambayntiina 5 Diseembar ayay cutubkaasi ka soo raaceen cabdirasaaq hoyguu deganaa waxay la soo raaceen mid ka mid ah gawaarida dadweynaha kaas oo keenay degmada Cabdicasiis cabdirasaaq waxa uu galay kadib garoonka ciyaaraha ee Keonis Stadium waxaana gudaha garoonka la galay koox ka tirsan nisa oo dabagal ku haya cabdirasaaq laakiin isagu uusan ka warhayn kadibna marka ciyaartii soo dhamaatay ayuu cabdirasaaq oo ay la socdaan 2 qof oo kale ka soo baxay gudaha garoonka Stadium Keonis sida aad arkaysaan sawirada ay qaadeen cutubkii dabagalka ku haya cabdirasaaq waxa uu taagan yahay banaanka garoonka ciyaaraha Stadium Keonis dabeetana waxa uu raacay cabdirasaaq gaari nooca dadweynaha ee Soomaalidu u taqaano caasi isla koox ka tirsan nisa ayaa la raacay gaarigii caasiga waxaana dabeetana nisa ay ugu diyaarisay goobar controller kilometer 0 halkaas oo caasiga lagu hareereeyay dabeetana waxa nisa caasigaasi kala degtay cabdirasaaq iyo cidadkii la socday cabdirasaaqna kadib waxa ay nisa ku raadisay dadkii kala qayb qaatay hawshan iyadoo ugu dambayntii la soo qabtay 6 Diseembar maskaxdii ka dambeysay in la dilayo oo ahaa Xasan Nuur oo magaciisa afgarashada uu yahay Aways caruurtan waa rajadii ay hooyadood dileen kooxda ugus waxaan ku booqday gurigooda xilli ay barxad yar oo gurigu lahaa ku ciyaarayeen banooni mushtaaq liibaan cali nuur waa guru dambaysta hindiyo waxay dhigeen kooxda ugus hooyo iyo aabalaan waana da'da ka yar muscab liibaan cali nuur oo ah dhexdhexaadka caruurta hindiyo muscab oo 3 sano jir ah waxa uu garansan yahay xanuunka ay ugus dareensiiyeen waxayna ehelka hadda xanaanaya ii sheegeen inuu markasta ku celceliyo inay hooyadiis iyo aabihiis dileen kooxda ugus waxaana dhex maray sheekadan magaca aabaya dili asha hooyadan ayaa dilay asha محمد وعرض كهنديو وكوبيتوان جرا إليا علوليو بدن كوحدة أوغوس إساقو دحفة ديا ولاليس أيو فرينو ديري دولة الصومالية دولة بحان قاعد سنة يا كوي هويدي الدنيا كوا في جان عدالة ورغدا وان كولا قبناي ورغدا وان كولا قبناي
dowladda Soomaaliya ayaa damaanad qaaday nolosha carruurtii ay ka tagtay allaha u naxariistay marxuumad Hindiya Xaaji oo ahayd wariye ka tirsan raadiyo Muqdisho SNTV. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo markii ay dhimatay allaha u naxariistay marxuumad Hindiya kadib ku booqday gurigooda carruurtii ay ka tagtay marxuumaddu ayaa uga tacsiyay geerida hooyadood lana qaybsaday murugada iyo ciilka ay badeen kooxda ugus carruurta kadibna waxuu halkaa kaga dhawaaqay dawlad ahaan iyo wasaarad ahaanba waxaanu ballan qaadaynaa inaanu si weyn uga warhayn doono carruurta yaryar aad arkaysaan ee masaakiinta aabahood iyo hooyadoodba la dilay iyagoo qaranka u shaqaynaya kooxaha nabaddiidka ahi wax kasta way dilayaan qof kasta oo nool oo haween leh oo maati leh oo carruur leh ayay dilayaan waanu runtii ficiladaas xunxun ee dhaqanka Soomaalida iyo ka islaamkaba ka baxsan waanu cambaaraynaynaa samriye iimaan Allah ka siiyo qoyska samriye iimaan Allah ka siiyo qaraabada samriye iimaan Allah ka siiyo carruurta yaryar ee masaakiinta hooyadood iyo aabahood laakiin waxaanu si adag u ballan qaadaynaa dawlad ahaan inay ku jiri doonaan gacanta dawladda inay hooyadood uma noqon karno laakiin heli doonaan daryeel dawladeed oo aan go'ayn ilaa intay ka qaangaareen ayaan baan wada sugayna qalbigoo asli dooni ayaan baan wada sugayna islaamnimo la isku dhaafay hooyada aabbaamo ayaan baan wada sugayna qalbigoo asli dooni ayaan baan wada sugayna islaamnimo la isku dhaafay hooyada aabbaamo inkastoo Cabdirasaaq iyo Xasan ay ilmahan yaryar dhigeen hooyo iyo aabalaan haddana iyagu ma jecla in xanuunka geerida loo dareensiyo sidii ay u dareensiiyeen waalidka carruurtan yar waxayna taa beddelkeeda dalbanayaan in la cafiyo waa kan Cabdirasaaq oo dhagar qabii gacantiisa ku dilay Hindiya oo dalbanaya cafis fal waa dhaca toobadna waxa aqbal ilaahay kaligiis wallahi yaqbalu toobata an cibaadihi wa ya'fu an sayyi'ati weeyaan in la iska cafiyo oo si aan u shaqeeyo dawladda u shaqeeyo qof inta ma soo laabanayo laakiin dadka si nool inaan si badbaadiyo oo aan si wixii aan badbaadi karo xog aan keeni karo waa keeni karaa ilaa xad aniga haddii la cafiyo oo cafiseelo waa shaqeynaya si aan u shaqeyn hagar laaneed shabakada qaabilsan indhaynta iyo qaraxyada baabuurta lagu dhajiyo gabi ahaan hadda waa la burburiyay waxayna ka koobnay 5 qof 3 kamida waxay hadda ku jiraan gacanta NISA halka labada kalena ay yihiin nafla caari xogtoodii iyo macluumaadkooda oo dhameystiran ay hayaan sirdoonka Soomaaliya shabakadaha kale la burburiyay waxa kamida shabakadu qaabilsanay tahaydiya saadka kooxda ugus waxaana shabakadan oo isticmaalaysay gaari dhaynah lagu qabtay gaarigoodii meel u dhow degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Hoose xilli ay wadaan sahay iyo qalab ciidan oo ay ku jiraan darajooyin ciidan oo ka bilaabanaya xidigle ilaa iyo sareeyo guute waxaana xogtahay warbaahinahano ogolaadeen NISA kamida in darajooyinka la doonayay in loo isticmaalo qaraxyo ay maleegayeen kooxda ugus kuwaas oo la doonayay in rag darajooyinka wata oo iska dhigaya saraakiil inay si fudud ku galaan xarumo ay bartilmaameedsanayeen kooxda ugus laakiin sirdoonka Soomaaliya oo helay macluumaadka qorshahan ayaa dhabar jabiyay qabtayna qalabkan iyagoo sidoo kalena burburiyay qaybo kamida shabakadii sahayda qaabilsanayd ciidanka NISA oo isugu jira kuwa muuqda iyo kuwa aan muuqan waxay dagaal adag kula jiraan argagixisada doonaysa inay Soomaaliya ka dhigaan meel argagax leh waana ciidan habeen iyo maalin u shaqeeya bulshada Generaal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare taliyaha NISA oo xilli saqdhaxa kormeeriyay fariisimada ciidanka muuqda NISA ayaa sheegay in ciidankoodu uu shaqeeyo inta ay korontadii biyuhu shaqeeyaan taasoo la mid ah inay ka dhigan yihiin ciidan shaqeeya 24 saac ciidamadiina waxay ku jiraan jadax ay masas ku cunayaan nin askari Soomaaliyeed ah oo muwaadina oo hooyo iyo aaba dhaleen oo carruur leh ayaa waxa weeyaan godad iyo jidad iyo webi qarkiisa waxa ku cunaya masas si uu wadankan u difaaco waxaan leenahay ninka hoteelka jiifa utur
ninka dadka u tur afkiisa amniga qalqaldara ku abuuraya amba maxaan ku idhaahdaa propaganda oo sameynayo amniga qalqaldara ku abuurayo waxaan idin sheegaynaa kuwaasna lama sugi doono haween nidaamka ayaa la marsii doonaa laakiin waxaan rabaa inaan muwaadiniinta Soomaaliyeed u sheego in amnigoodu uu sugan yahay waxaan rabaa inay ku seexdaan magaaladan udkhulu bisalaamin aaminin ku soo gal nabadna ku jooga waxaan rabaa ninkaan nabad ku joogayn dagaal naga filo ninka inuu nabad magaaladan ku jooga aan rabay ninka soo dhaweynayo dagaal naga filo guriga uu galayo dagaal naga filo gacanta wax siinaysa dagaal ha naga filato waan ognahay ciidamadaanu amar waxay qabaan gurigii qarax laga soo qabto gurigaas in sharciga la horgeeyo dukaankii laga soo qabto dambi in sharciga la horgeeyo qof dambilaa oo argagixiso ah amba dambiyo waaweyn ku jira qofkii kalkaalaya in sharciga la horgeeyo kosokow xuuraankiyo ka hortagga qorshayaasha argagixisada waxay sidoo kale ciidanka nisa gurmad ka sameeyaan meel kastoo ay ka sameeyaan weeraro argagixisanimo kooxda ugus waana ciidanka keliya caalamka awood u yeesha inay wax ka yar saacad ku soo afjaraan weeraro argagixisanimo oo dhismayaal lagu soo qaaday halka meelaha qaarkood caalamka ay qaadato maalin iyo habeen in lagu soo afjaro weeraro ka baaxad yar kuwa ay ku soo qaadaan argagixisadu Soomaaliya.